soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada walaaladay isrifitaan bay deen weyday isrifitaan bay diisan weyday ruuxba ruuxba ku soo caanbaxaya ma la maqlaa codkayga si fiican ma loo maqlaa fadlan ii sheer gareeya codkayga haddaad maqashiina ii sheega ii sheega haddaad i maqashiin waayo isrifitaan bay daysan weyday maanta halkan dhowr shay baan u soo galay fadlan ii sheeri gareeya soo gal isma lahayn laakiin danta igu kalifay ahlan wa sahlan yaa murtadac marka inaad ii sheeri garaysin isku daya codkayga haddaad maqashiinna iisoo sheega because maanta waxaan rabaa haddii la isteen waayo hadda waa la isla walaaqan kow cayduna iib ma ruux kastayba u yaqaana sida loo cayta ruux iga badiyaay ma jiro cay hadday noqoto soo gala iina sheer gareeya shacabkayga aawe waan idin wada salaamay dhammaantiin in adeerkay qaali mukhtaar soo dhawow haddaad caadi ii maqashiin iisoo sheega kulayl baan ku jiri kari weyna guryihii kadibna waan ka soo baxay gurigii marka haddii si fiican la ii maqlo وعليكم السلام هبرير waxyaalo badan oo waxa jira faan laakiin dadku ay cay u arkaan okay waxyaalo badan oo waxa jira dadku ay faan u arkaan laakiin si anigu aanan faan u arkin nin baa maalin wadigu lahaa naagtaadan madow meesha maxaa ku soo dhigay madowgii baa ceeb noqday walaalayaal ii sheeri gareeya maanta muhiimad adag ayaan meesha usoo fadhiistay isma aanan lahayn life ku soo noqo because soomaalidu waa dhagax dad wax la fahansiin karana ma aha adigoo wada wanaagooga adigoo wada yacni baraarujintooda adiga oo ka dhiidhiyaya waxa soomaalida lagu samaynayo ayay qalad ku rogayaan way ku caynayaan marka dhibaatooyinku way iska badan yihiin hal naaga laba arrimood baan soo galay maanta meeshan labada arrimood oo ah midda koobaad hambalyo ballaaran baan u dirayaa dadka gari koombo 3 degmaa la siiyey maanta un baabana la xasuustayba hambalyo aad ballaaran ayaan u dirayaa عبد محمد عمرنا وانا قوم هاد علينا معارضني ما waxay keentaa ma jirto laakiin qofku waa dhaliili karta الان ما انا دين عبد محمد عمرنا dhaliilo waan dhaliilaya
arrimihii horey aanu sheegi jiro oo dhanna wuu ku dhaliilan yahay al'aan wuu ku dhaliilan yahay laakiin ruuxu wuxuu qabtay horeyba anigu waanu sheegi jiray indhaha la iskama qabto waa la sheegaa waxaan buu qabtay waxaana uu ku qaldan yahay because waa bini aadan halkan maanta waxaan soo galay naagta la dhaho nagisanku adduunyada waxaan u necbahay ruux waxaanan odhan iga sheego oo inaba thank you habaryo thank you maanta halkan waxaan soo galay naagta la yiraahdo nagisanku ayaan maanta u soo galay iguna kaliftay inaan live-ka soo galo xalay markaan arkay waa halkii maama Malyuun iyada baalaha iga rifaysay waan seexan waayo xilli dambaan arkay mooyee intaan soo galaan kolley imika aniga ma rabo inaan caayo ma rabo inaan si xun wax uga sheego because waa gabadhan oo kala kor biliseedna kaba isma dheeraa la yidhi aniga waxaan idhi hadday sheegto dhib ma laha because waan idhi life baan la soo fadhiistay public baan la soo fadhiistay waxaan idhi waan dhihi weligeyna ma aanan dafirin waxaan idhi ya ilaaha naftiya dhiig idin geliyaan idinku dhaariyey saytay way wakada ilmaabtiyadii qumana inay nagisangub aniga inabto oy been iga sheegto may tahay aniga abwaan sangub aad baan u jeclahay waa nin abtigay ah siiba dadka ree Isxaaqa la yiraahdo dadka kale aniga way iiga dhow yihiin because waa ree abtigay aniga hooyadii macaan baa ah ogaadinku way iiga dhow yihiin ogaadino dhan waa ree abtigay walaakiin ree Isxaaq aniga way dhaleen maanta anigu haddaan ka hadlay dhibkaygii yaan wax u geystay yaan wax u dhimay aniga dhibka aniga ee haysta ayaan ka hadlay bis ii sheeri garay fadlan dad badan meesha kuma arko marka inaad ii sheeri garaysiin isku daya si gabadha nagi la yiraahdo uu fiidiyowgaygan u gaadho aniga ma rabo qof khusuusan ree abtigay ah inaan wax ka sheego hadduu xun yahay xitaa ma sheegayo qof xun haddaan arko ree abtigaya ma sheegayo xumidiisa because xumidiisa waa wax aniga igu yaal hase ahaatee nagisangub aniga igu qaldantay dadkana kamaanan aqoonin cayduna ruux ay ka gadan tahay ma jirto haddii la kala xishoon waayana haddii waa la isla walaaqan haddii la kala xishoon waayo wallaahi billaahi tallaahi waa la isla dhabo waraariyan waayo cidna cayda lagama xigadii qof kastaba telefoon u haysta live-ka sida loo soo galan wuu yaqaanaa marka aniga live-kaygii hore dadkii badankooda ku jiray way ku jiraan halkan inaabti macaan wallaahi way ideeqdaa inaabti soo dhawow inaabti raali noqo najmaay aad iyo aad baan aad kaaga mahadcelinayaa inaad horta isoo qabato waan iska daalanahay shaqaan ka soo baxay oo intaan soo qubaystay waan hadda jiibsaday waan kaa raali gelinayaa horta inaan kuu fadhiistana waa waajib laakiin bilaa garan baan ahay iga raali noqo inaabti horta aad baan kugu mahadcelinayaa inaad soo qabato qoraalkiisu wuu ku dhaafay samatarna wuu kula hadlay jigjigamaan anna waan kula hadlay wax kale kuma dhahayo aniga hadday kugu qaldantay annaguna waan kugu qaldanay hadday ku wanaajisay annaguna waan ku wanaajinay cadowgaa jiray inuu kaa faa'iidaysanin intaa bes aan ku dhahaya arrintan anaga garin halka ku joojinaad intaa bes aan iga codsiya samatarna wayna maqlaa qoraalkan uu ku soo qoray arrinta annaga mas'uuliyaddeeda qaadayna aniga samatar baa mas'uuliyaddeeda qaadayna halka inaad ku jooji waana gol cadowgu inuu idinka faa'iidaysan bes annaga naga warsug aniga samatar
big respect inaabtiga الله كشرفات حولها كلاوات korman kugu نيجي هالكا كتشوج أبت thank you inaabtiga مي أبتي فدي insha Allah marka نجمعي حشمت بانكو هيا isla ismaqli doona هيا أبت هيا أبت السلام الله عليكم الله كشرف sidoo kale waka talku wuu isqabtaa waana qabsoomay talku wuu isqabtaa waana qabsoomay samatarante demo salam biyallo jigjiga maan jecliyaa reer jigjiga si un baa la idhi markaan reer jigjiga arko xawsadii baa iga qabowday caradii ahaysay laakiin inaabtigay baan ku qaboobay samatarkayga thank you inaadeer thank you so much oo ku salaamayaa salaam wacan oo wanaagsan aad iyo aad baan u salaamayaa taageerayaashaada walaalle waxa weeye salaanta ka bacdi horta dadku in la isqa qabsado way jecel yihiin absolute marka ama jeceli inaad adiga iyo gabadh macni habaryar kuwa inaad isqa qabsataan waa inaabtigay sangu baabtigay haa marka aad baad u mahadsan tahay horta aqbalaada aad naga aqbashay anigii ciid 100% ma garata okay marka horta aad baan kuu salaamayaa arrinkaana si fiican aad nooga aqbasho aad baan kugu mahadinayaa thank you walaalka you welcome gacmo geel hoos baa loo dhaqaa ma garata صح الله مريكنا قد كيسان فهمي هيو تكتيك ما كل مريكنا هدا قد كاس كدمتين انا يورو جوجنا نسكو قصفي عنها انت ما بقول ما انا ادير واد ما حسنتahay boqol ina adeer aad baan kugu mahadinayaa hadhowdi insha Allah waxaan samayn doonaa inaynu kolley ana si gaar ah ku soo wacaya ma garta kolley adiga wiilka in abtigayaan idinku daynaya gabadha nagi ah inta iskay maqashiisiin inay iga soo garbaxdo hadalkii aan soo watayna iyo wixii aan dhis lahaa iyo wixii aan bartaasan ku joojinaya waayo wax maanta waxa hadda wixii ka dambeeyay waxaad ka hadlaysaa arrimaha tulli guuleed fadlan please waasay tahay aabaday aad bad u mahadsantahay adiguna waan idin qabsoomayaa baanahay inaad tiidin baanahay waan idin qabsoomayaa okay insha Allah way thank you so much adaa mudan walaalkay waxaa sabto laga yiraahdaa haye nabta haye marxaba waan idinku go'aa ballan waxaan idinka qaaday in aanan wax dood ah aanan ka qabin because tolku waa kuwa isqabta aniga ilmaabtiyada baa tihiin ogaadeenoo dhan waa reebtigay absamoo dhan waa reebtigay anigu cidna ma jeceli inaan xagxagto ruux afkiisa iyo adinkiisa laga amaan helay baan ahay waligay la igama soo dacwoonin inaan aan qof ka dacwoodo mooy waligay la igama soo dacwoonin nagisan gubna waa inaabtiday abtigaysan gubaa ii dhalay hadday igu qaldantay inaadna kala dhex gashiin oo ma garanaysaa tolnimo lagu dhameeyo waa tan u jecelahay because inaan isxagxagano oo social media na lagu barto because la isma kululaysto hadday soo caydo anacay iyaduna soo caydo anacay wax yacni sharaf darro amooye wax kale oo meeshan ka dhalanaya ma jiro ummadana waxaan u sheegayaa laba xaalo waan idin soo qaban walaalayaal waan idin soo qaban in yar isuga ummadda waxaan u sheegayaa laba xaalo oo ah in aan kowhan ku horeeyo onelef aniga wax cadaawad gaar ahaan ah oon hadda u qabaa ma jiro because aniga way idileen way igaraaceen anaan waxba ku samayn welibana waagaa waxaan ahaa dee nooca la yidhaahdo birimageydada anoo intan leeg hadday dilaan dee dhibban bayna haafteen waxbay ku samaysay baa la dhihi laamo 13 jir mis 14 jir baan ahaa intay i qabteen bay i garaaceen aniga raggii i garaacay oo isa soo dhiibay oo hadda liyu boolis ah ayaa jigjiga barkood jooga
oo beenaale waxaa la yidhi markhaatigiisu fogeeya oo shaambal rabiic baa ka mid ah hayaa mistanyaa regiment ku jira raggii isaloolay ma garateen haddana aniga keliya waxaan soo jeediyaa waxay tahay qof aan wax la yeelin ma jiro qof aan wax la yeelin ama liyu boolis ha yeelo ama onelef ha yeesho qof aan wax la yeelin walaalayaalow ma jiro maxaynu ku ilownaa sidii hore maxaynu ku ilownaa saynuse ku heshiinaa saynu imika ku heshiinaa sidii hore maxaynu ku ilownaa ruux kasta oo dhib qaba suu ku ilaawi kara aniga run ahaantii onelef waa necbaan jira liyu inaan noqdana ayaga ciilkooga ayaa igu kalifay ma fahantiin al'aan maantana dee maalinba maalinta ka dambaysa aqli baa kuu kordhahaya cadowgeenniba arlada ka badan etoobiya oo dhan baa cadowgeenna ah runta marka laga hadlo abiye axmed waad maqlayseen wuxuu ku hadlahayay uu yidhi boqolkiiba 5% bay leeyihiin soomaalidu shusaalkooga aniga qofkii imoodaya oon elef waqti xaadirka inaan necabahay calankoogu gacanta muuna iigu xidhnaadeen calankoogu gacanta muuna iigu xidhnaadeen oon elef baan jeclahay liyu boolis baan jeclahay soomaaliya oo dhan baan jeclahay ee waxaan leeyahay bas ah iminka shalay toole waxyaalaha ugu badan ee la igu qabsadaa ee dadku igu soo qabsadaan waxay ka mid tahay maxaad uga hadashaa geri ani geri kaan baan haydee isir aboota ma guurtaa la yidhi nin kastaba waa awowgii aga reebtagayna madaxaan kor ugu qaadaa waa aftakhir fii waan ku aftakharaa reebtagay inay ogaadayna dhaleen ogaadayna cidna ma aynan laynin tigree iyo etoobiya iyo dulli baa ka dhex faa'iidaystay ma fahantiin anigu wallaahi billaahi tallaahi ruux yaqaana ayaa loogu dhaartaay marka halkan liyu boolis wax ka dhinto ama uu onelf wax ka dhinto qalbigayga ilaahay unbaa ogaan jiray sida uu yahay marka walaalayaal waxaan idiin sheegayaa dadkan liyu booliska dadka qaladka ka fahansan liyu boolis waa rag ciilan xaqiiqatan waa rag ciilan ma fahantiin nin ay axmaara reerkoogii laysay oo ciil u qaatay shaarka oo liyu boolis ciil u noqday iyo nin on elef dadkoogii laysay oo ma garanaysaay ama walaalkii dishay ama aabihii dishay oo si u soo socday uu liyu boolis noqday waxaa la weydiiyaa ruuxa maxaa ku kalifay inuu waxa noqdo sabab ayaa la weydiiyaa lama caayo ra'yigiisa lagama soo horjeedsado lama mucaarado adoon ogeyn ruuxan dhibka haysta xaraam weeye saas waayo qof dhib markuu haysto wuu hadlayaa liyu boolis waa niman la amro oo ma garanaysaay hadday maanta dee nin kastayba tulli guuleed liyu boolis dhowr boqol oo nin oo gariyaa ku jira dee niman waxaan garanayaa liyu boolis ah oo hadda yacni xilal haya korneyl ah shaalaqayaal ah oo walaaladood lagu dilay tulli guuleed ayaan garanayaa walaaladoodna aanan u hiilin karin waayo ciidan waa amar qaatay ama liyu boolis ha noqdo ama onelef ha noqdo ciidan walaalayaal waa amar qaatay iska daaya negatifeka iska daaya oramo waad arkayseen maraykan waxay ku samaynaysay abiye axmed iyo ninkii jawhar ahaa ee ma garanaysaa waagii uu oramo kicinayay anu horta inkastoona ku jirin oon diiday mudaharaadkii inaan raaco jawhar lagaga soo horjeeday jawhar dhownta la hayay waan diiday inaan raaco waxaan shaqooyinkayga ka badan waad arkayseen gacmahaysaa isku haysteen jawhar abiye axmed kii oramada xukumay ma fahantiin hase ahaatee waxaan dadka ugu baaqayaa ilma adeerayaalo kow inaydaan dadka bedelin waayo ruuxa bini aadanka qadaf haddaad qadaftid ilaahay baa kula xisaabtamaya lama qadfo iska dhaantee lama qadfo bini aadanka caydu waa ceeb ani geri koon baan ahay dadkayga dhibka ku yimaadana al'aan waan ka hadlay ani cabdi maxamed cumar cadow kuma ihi cabdi maxamed cumar cadow kuma ihi qodobadan hadda ka mid aan ka hadlaya waxay tahay cabdi maxamed cumar buu ruuxaasi taageersan yahay haddii onelefba waa tii isla soo sawirtay kenya taasi ma beentayba onelefba waa tii isla soo taswiirtay cabdi maxamed cumar
بلوك بعد كي يقانا جماعتهم هدو دنبيلي هي عبد محمود عمر وين اسك قبانينا anigu nujma ahaan maanta wax taageerahoon u hayaa ma jiradii laakiin cadow kama dhiganayo oo anay cadow kuma ihi because ani dadkaygii buu dayriye cabdi maxamed cumar dadkaygii dhaqaalaha laga qaadayay dhaqaalaha dowlad deegaanka ugu badan ayaa ka soo gala gari koombe cabdi maxamed cumar waan kala noqday taageerahaygii kun jeerna waan idhi mana taageerayo dambiile hadduu yahayna saynu maxkamad ku keeni lahayn waa inaynu ka shaqeyno isaga iyo intii kale dadka dambi ka gashay maxkamad aynu u keeni lahayn inagu horta gacmaha aynu isqabsano markaas ayaynu dambiilayaasha iska soo dhex saarayna laakiin inagii reehebel aniga dad baa igu haystay najmay rag waxaa jira aan waagii ogaadeen ay isleynayeen aan ka hadli jirin laakiin hadda gari koomba ka hadlay war ogaadeen shisheeye muuna laynin dee iminka gari gudihiisu haddoo istiriro oo gari tulli iyo gari daakhata istiriraan hadda waa dhibkooga iyo doqonnimadooda cidaanu u qabsanayna ama cidaanu xagxaganayna ama cidaanu wax saarayna midna ma jirto ee dullinimadooda weeyi aniga reabtikay ayaga cadow isku jabiyey ayaga isdhameeyey ayagu tigree adeegsaday inay soomaalida kale xagxagtaan ma haddii iminkana waan soo qabanaya because inaan wax badan ku jiro ma rabo fadlan sheeri gareeya negative-kana walaalayaal iska daaya hayada cidna lagama iibiyo anigaygan haddaan afka idin kala qaado wallahi dhali maysiin waayo cay waa la wada yaqaanaa hamoodiina inaad keligiin taqaanin marka cayda yareeya qofkiis cay soo qoro ninkii gaalka ahaa ee balooga sameeyey baan u mahad celin lahaa haddaan garanayo okay sida loo kala horeeyo ayaan u soo qabanayaa dadka because inaan wax badan ku jiro meesha ma rabo fadlan sheeri gareeya inaad waxa kugu qoran ma akhri karaya halkii wax ka qaldan yihiin muraayadaan u baahan aan u malaynaya markaas inaad maanta aniga oon gari koomba ka hadlin waagii hore ugu horreysay gabadhii tayasiir ahaydee la dilay qofkii koowaad ee gari koomba ee ka hadlay ee cabdi maxamuud cumar cambaar korka uga tuuray baan ahaa dee ogaadeen maanan ahayn wiilkii xubinka taranka laga gooyey al'aanna aan leeyahay dullinimadu ku dhaqaaqeen dadkaasi iyo dhaqan guurka ay ku dhaqaaqeen wax loogaga hadhi ma aha waxyaalo badan baa inoo yaalla tayasiir dadkii dilay baa yaa waddanka jooga wiilkii reegoda inuu ahaa baan u malaynayaa xubinta taranka laga gooyey dadkii dilay baa adduunyada jooga oo iska duldaashoonaya innagu haddaynaan heshiinin innagu haddaynaan mid noqonin seen iskaga qabanaynaa dadka Itoobiya dabadhaanka u ah iyo tigreega iyo garacda iyo gaalada yaa waad aragteen ninkii gaalka ahaa ee haligmay ee abbay dhisayay meeshan inuuna arxan oolin waxaad ku ogaanaysiin axmaarkii abbay dhisay ee tuuga ah heedadii ee la dilay axmaar buu ahaa axmaarad maxay naga galay naga midda kale war diintii baa la bedelay war dhaqankii baa la bedelay anigu TV-gan ESTV leeyahay qurumada baan u aqaanaatay dulli way TV ma ahe waagi hore waxaan dadka markay igu yiraahdaan TV-ga jigjiga lagama soo daay quraan baan yaxyiixi jiray oo wallahi dhulka aan eegi jiray laakiinse maanta dulli way ana leh waxaan u leeyahay waa la soo tiri koobay 900 oo nin ayaa tulli kaliya ta ku dhimatay 3 bilood gudahood cid uga tacsiyeysay iyo cid ka hadashay ama TV laga soo daayay ama wax laga soo daayay ma jirto axmaarkii dhintayna waad wada aragteen ma filaya dhar madmadow inta loo xidhay
oo asay loo qaaday ayaa ma garanaysaayay weyneyada la hayay oo madaxweynihii cakaara news dadka akhrista iyo wararka dadka la socda kulley weydin ku jiraan baan u malaynaya waxay yidhaahdeen xukuumadda uu cabdi maxamed cumar ugu horeeyo xisbiga mahayga heego dhalinyarada balaayada waxaan badam hasnaallo bay ku leeyihiin waxaan uga tacsiyeynaynaa ninkaas dhintay ee axmaarka ah yaan uga tacsiyeynaa dhar madmadowna way soo xidheen 900 oo nin oo Soomaaliya la dilay oy Oromo dishay oy cadow dilay yaa cid ka hadashay iyo cid ka gubatay midna ma ay jirtadii kali ah waxaynu ku gaadhinaa guul axmaaro iyo Oromona kaga adkaanayna inta dulliga ee wadanka dhex joogtana kaga adkaanayna iskaga soo dhex saarayna waxay tahay inaynu inagu mid noqono ayaynu iskaga saaraynaa laakiin qabiilka saabe markuu dhinac isku buuso qabiilka saabe markuu dhinac gafuurka u taago hadda agabay sheekadu noqonaysaa wax hagaaga hayaa ma jiro dii imika balwan inta qof ay soo dalbataan soo qabanaya kadibna oon ka baxayo بو بدار وأي صوت البو أبسل ذوقها فكر كفي عنه أنا قري كريات أم حضله وما أنا هضله يو qof kasta oo wadanka ku nool shanta Soomaaliyeed baa ku nool ogaadin baa ku nool jidwa qabsama ku nool gari baa ku nool hawiya ku nool isaaq baa ku nool ciisa ku nool qofka kasta oo la dhibaataynayo aniga waan u hadlaya dawladana waan cambaaraynaya wax kale ku sameyn karaa ma jiro laakiin ballan waxaan ka qaaday social media cidna kama gadno qof kasta wifi wuu xiran yahay ma garanayo waxa idinku dhacay qofkan soo qabtaa ma soo qabsamayo qofkan soo qabtaa ma soo qabsamayo wallahi ma garanayo cabdi axmed hayi walaalo waan ku soo qaban waa dadka jaarsada iska daa alla qofkani garanaya bartan jooga waa ay obsaale ku yid qofba hadda ku taagan waan idin soo qabanaya laakiin qofka markaan soo qabto ma garanayo suu u taagan yahay buu ka baxaya waan idin soo qabanaya okay وكا غورغيغي ابا سكول مين كنت واقع هاي ابا سكول لو قدر كجي ابا سكول واجد واقع ورأييدي awowgii bay dhaleen maxamed cabdi odawa okay soo dalbo